howlgal qorsheysan oo ciidamada amniga gobolka Bari ay ka fuliyeen xalay magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu fashiliyay qarax weyn oo la dhigay isgoyska Gaaco gaar ahaan halka ka leexata wadada aada suuqa weyn ee Boosaaso oo ah meel ay dadku inta badan ka adeegtaan. qaraxan ayaa qorshihiisa waxa uu ahaa in la qaraxiyo marka ay dadku isugu yimaadaan goobtaasi, balse uma suurtagelin kooxihii damacsanaa inay fuliyaan qaraxaasi. ciidamada amniga ayaa goobta soo gaaray kadib markii ay ka war heleen in halkaasi qarax la soo dhigay. qaraxan ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa nooca meelaha fogfog laga hago, waxaana ay sheegeen ciidamada in haddii qaraxaasi sidii loogu talagalay uu u dhici lahaa dad badan ay ku dhiman lahaayeen oo shacab u badan. haddaba sidee buu howlgalkaasi u dhacay, sidees ay ciidamadu xogta ku heleen? waxaa warbaahinta u sharaxaya duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan iyo gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacees Dhado. maanta waxaan rabnaa inaan halkan ku soo bandhigno howlgaladii geesinimada lahaa ee ciidamada booliska ee gobolka Bari iyo dhammaan laamaha kale oo amniga ka howlgala magaalada Boosaaso ay xalay soo qabteen. waxaan rabaa inaan u bogaadiyo dhammaan ciidamada ka howlgala magaalada Boosaaso sida habsami socodka leh, wanaagga leh, xilkasnimada leh, mas'uuliyadda leh ee u gudanayaan waajibaadkoodii dawliga ahaa. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. run ahaantii waxa weeye sidoo kale cadowgii qorshayaashii markii falalkii dilka ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso ka fulinayeen, markii waxa weeye kahortag la sameeyey, baaritaan xoog la sameeyey, kadib waxa uu wareegeen qorshayaal kale iyo inay dadka si kale u dhibaateeyaan. tiina waxa weeye ciidamada booliisku xalay waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan waxaana ujeedaan hortiina yaala. haddii dhibaatada geysanayaan iyo waxay geysanayaan kulligan waa wada ognahay. marka aad iyo aad baan aniga kalmadeydu waxay ahayd bogaadin ciidamada ka howlgala magaalada inaan bogaadiyo. wixii kale oo faahfaahina iyo hadalka intiisa badan waxaan rabaa inaan u hambeeyo gudoomiyaha gobolka. aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudoomiye. soo dhow barakaatu. salaan kadib saaka halka waxaanu ugu nimi howlgal xalay maxaa ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha Baxayo, halkaas oo ah meesha ugu population-ka badan subaxdii oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayday ku qarxiyaan iyadoo checkpoint loo ah. qaraxaas muxuu ahayday xalay waa lagu guuleystay. wuxuu ka kooban yahay borderkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo. waxa weeye waana nooca waxaa kaloo ku jiray telephone. waxay ahayn kan telefonku cariyo oo telefonka laga soo waco oo meel fog telefonku muxuu ahayday uu ka soo wici karo. telefonka ku jiray qaraxa biro yar yar oo muxuu ahayday googo-an. waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa. saaka muxuu ahayday haddaan ilaahay muxuu ahayday xalay howlgalka iyo foojignaanta ciidamada aan muxuu ahayday aysan jirin, saaka wax kale ay muxuu ahayday meesha ka dhici lahaayeen. ilaah baa nagu guuleeyey. eebaa leh muxuu ahayday awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayday sida loo qabtay iyo sida aan dhib u dhicin oo loo furfuraba ilaahay baa muxuu ahayday nagu hagaayey. isagaan mahad u celinaynaa. mahadda labaad waxaan u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayday ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayday ciidan muqdaba ha ahaadeene xalay hawshaa ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey. intaba waanu u mahad celinaynaa. dadweynaha waxaanu jecel lahay waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado. waayo qofkii bac buu sitaa, wixiiba oo dhan baa ugu jira, meel buu dhigaya uu kaga tegayaa. dabadeedna waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagarqabayaashu ay muxuu ahayday ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan. ammaanka magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland ayaa aad u deganaa maalmihii u dambeeyay, iyadoo sanadkii 2018 ee tagay Boosaaso lagu dilay dad isugu jiray ganacsato iyo xubno dawladda u shaqeeya. waxaana ciidamada amniga ee gobolka Bari dagaal ay kula jiraan Al-Shabaab iyo Daacish oo ka dagaalama inta badan buurleyda galgala ee gobolka Bari. Xasan Heykal, Kalson TV, Boosaaso.